qoyska marxuumad hodan Axmed Shanleyste oo dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland 12 Abriil sanadkii 2019 waxaa tan iyo xilligaasi socday baaris lagu sameynayo 7 ruux oo loo soo qabtay tuunka inay ka dambeeyeen falkaasi sanad kadib oo ay gal dacwada arintaas ay fureen garsoorka Puntland ayaa ku soo ilaaday go'aan aan farxad gelin qoyska marxuumad hodan Axmed Shanleyste mudaharaadyo nabdoon oo ay soo awaabuleen ehelada marxuumad hodan Axmed Shanleyste ayaa lagu qabtay degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal waxa ayna labada gole ee Puntland iyo garsoorka Puntland uga dalbadeen inay cadaalad mariyaan cidii falkaasi ka dambeysay ugu horeyntii waxa si wada jira warbaahinta oo la hadlay nabadoon Maxamed Cali Shire Caaqil Hayf Dhalaal iyo qaar kamid ah bulshada ka soo qayb gashay mudaharaadkan lagu codsanayay inay cadaalad hesho marxuumad hodan Axmed Shanleyste cadaalad darrada aan ka cabanayna waxa weeye hooyo uur leh oo xaamilo ah oo inta la kufsaday la dilay oo bac madax loo galiyay oo iyadii ilmaheedii la dilay dambiilayaashii dambiga ka galay oo bacda madaxa u gashay ilmaheedii iyadina dilay markii la soo qabtay oo cadaaladda la hor keenayna oo ay qirteen kiiskii waxa kiiska inkiray oo dafiray xeeraraayaha Puntland oo la rabay sidii Caasha Ilyas cadaaladda ugu raadinayay inuu hodan Axmed Shanleyste ugu raadiyo cadaalad waa inkiray xeeraraayuhu arinta waa inkiray waxaan u baahanahay madaxweynaha Puntland madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa arinta inuu soo farageliyo madaxweynaha iyo labadiisa gole halkan baaq uga direynaa madaxweynaha Puntland iyo wasiirada Puntland iyo baarlamaanka Puntland cadaalad darrada maxkamadaha Garowe xeer ilaalinta iyo dababaarista ay ka sameynayaan Puntland oo dadna in la laayo oo sharciga lagu fuliyo dadna la duudsiyo qodobada aan soo qaadanayno waxa kamid ah dad ayagoo eedaystanayaal baa waxa la dhigaya sharaaciyada iyo TV-ga si fiican looga daawanay dadna wajigooda la qarinay hadii cawaaqib xumada ka dhalata arinta waxa qaadaya xeer ilaaliyaha damibaarayaasha iyo xaakimiinta Puntland loogana haribayo cadaalad darrada hodan Shanleyste ku dhacday ayadoo kiiskeedii cad yahay oo marxaantiyaasheedii la hayo oo marxaantigii qirtay oo nimanka ay noogu caddahay nimanka duudsiiyay oo maxkamadda fadhiya oo ragna soo saawiray saa u soo jeediyo wajiga dil kaga qorayay ragna sii jeediyay oo dhabarkoodii kaliya muujiyay taasi cadaalad ma ahan waxaanu codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa oo Puntland haday daacad oo jiri doonto ka codsanaynaa cadaalad hodan Shanleyste inay hesho baanu codsanaynaa Shanleyste cadaalad bay rabtaa cadaalad darrada ku dhacday hodan Shanleyste baa qoraxdaana soo dhoobtay waxaan la hadlaynaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu wax ka qabto cadaalad darrada ku dhacday hodan Shanleyste oo laga aamusay oo xeer ilaaliyuhu ka aamusay oo waxa way dadkii maxkamadii in la galo loo diiday maxkamadii si loo ka takiiskii caalamka laga daawaday Caasha Ilyas oo loo wada jeeday waa loo diiday hodan Shanleyste qof inuu galo waxa weeyaa dhabarkii baar loo sii jeeshay nimankii waxa way gabadha dilay oo cadaalad darrada ku sameeyay oo kufsaday sidii waxa way u heshay qofta la dhaw Caasha Ilyas inay cadaalad u hesho hodan Shanleyste Dani madaxweyne Dani shacabka u tahay mas'uul ada bari kamaan laga xisaabtamaya oo u dhaaratay kitaabka Ilaahay aad gacanta u saartay waxa laga rabaa mudane madaxweyne cadaalad inaad samayso waxaanu dhamacdaan u taaganahay oo aanu isugu soo baxnay oo aanu dhididka u sayraynaa cadaalad darrada Garowe ka dhacday oo lagu sameeyay hodan Shanleyste waa gabar yara oo uur leh oo xaamilo ah niman baa u yimid gurigeedii bay ku kufsadeen waa ay dileen bacmada bay madaxa u gasheen waa ay qirteen cadaalad ma helin arinkani ayaa kamid ah 3 fal oo uu saameynta badnaa oo ka dhacay Puntland sanadkii 2019 walow mid kamid ah cadaaladda la marsiyay halka laba ay kamid tahay marxuumad hodan Axmed Shanleyste ee weli cadaaladda aan helin Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle